بسم الله الرحمن الرحيم. soomaalidu waxay tiraahdaa nimco walba nusqaanteeda leh. walow dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ah ay leeyihiin waxyaabo si weyn loo qiimeeyo sida dhinaca martisoorka iyo karamka, haddana meelaha qaar wuxuu ku leeyahay dhaliilo tiro badan. tusaale ahaan, dhaqanka Soomaaliyeed qaybihiisa ku saabsan sinaanta bulshada waa mid aad u foolxun oo uu takoor la talax tagay. runtii maanta habdhaqankaas ku salaysan heebsooca iyo sida waxaa si weyn u diidan dhalinyarada Soomaaliyeed ee damiirka wanaagsan ee lahana qaaday zamanka iyo waqtiga cusub. taasna waa mid yidadiilo mudan. runtii taariikhda sababaha beelaha Soomaalida loo heebsooco loona takooro waxay ku salaysan tahay sheekooyin kuturkuteen ah oo u muuqata been abuur oo aan caga badan ku taagnayn diinteennuna aan ogoleen. sidoo kale khubarada ka hadla xal u helidda silaca iyo dhibaatada Soomaalida maanta haysata waxay mar walba carabaabaan ama ay carabka ku dhiftaan in heebsooca iyo takoorka loo geysto beelaha la heebsooco oo ay sababta ugu weyn ay dhibaatada Soomaalida ugu jirta ay tahay, taasoo ay sheegayaan inay muhiim tahay in bulshooyinkaasi la xaal mariyo loona magdhabo dhibaatadii iyo xumaantii hore loogu geystay oo sida gabood falka ah loogu takooray. dadkaas oo aan haba yaraatee aan waxba galabsan, wax eed ahna ku lahayn kibirka iyo jaahilnimada loo faquuqay. nabigeena allahumma salli wa sallim calayhi wuxuu yidhi dacwatu lmadluumi mustajaab walow bacda xiin. يعني ducada oo qofka la dulmiyey waa mar walba waa mustajaab xataa mar dambe haddii ay dhacdo. uu yidhi allahumma salli wa sallim calayh. marka aad fiiriso laashinkan ama gabaygan tixdan gabayga ah ama laashinta ah waxaa tiriyey nin reer baantuu ah oo la dulmay oo ilaahay u dacwoonaya. wuxuuna yidhi ciriiri adduun iyo ciil aan ku jiraa, casiis alla weynaan ciidankayga ka yeelay. walaalayaal, intee aan ka gelaynaa dacwadaas adduunya iyo aakhiraba? marka si kastaba ha ahaatee, Soomaalidu waxay tiraahdaa middi calool gashay maxay u gashay lama yiraahdo, sideen u daaweynaa baa la yiraahdaa. waa nagu waajib ka waaxid ahaan ama shakhsi ahaan ama wadar ahaan Soomaali weyn oo dhan si wada jir ah inaan la dagaalanno dhacdooyinka jaahiliga ah iyo si aan uga taxadirno inay mar dambe dhacdooyin foolxun u dhicin hadduu Ilaah yiraahdo. ugu dambeyntii waxaa naga tala ah midda koowaad in bulshooyinka iyo mujtamaca la liido inay himadoodii kor u qaadaan oo ayan niyadda iska jibinin. haddii ay ayaga dhulka isdhigaan waxay caqabad ku noqonaysaa in la tirtiro caadooyinka xun. waxaan leenahay walaalaheena, qofka naftiisa sharfa ayaa sharfan. noqda mujtamac wax barta, dhaqaalo leh oo dadaala, caruurtiinana ku waaniya inay culayskooda jiitaan. dadaalkiina maalin maalmaha ka mid ahi miraheeda waad guranaysaan hadduu Ilaah yiraahdo. tusaale ahaan, mujtamaca yahuudda iyo hunuudda ee lagu takooray ee reer galbeedka markii ay dadaaleen, ay xoolo yeesheen, ay wax barteen, macnaa hadda ayagaaba dabaqada sare oo ku jiro oo ayaga marka waxa waaye idinka door ayaa ku leedihiin inaad oo nafsadiina aad ciz nafs inaad nafsadiina kor u qaadaan idinkana oo aan isniyad jabin oo aan aqbalin waxyaabaha oo ay dadka idinku sifeynayaan insha allahu tacaala. sidoo kale midda labaad, dadka wax takoora waxaan leenahay ilaahay ka baqa, aan ka baqno xisaabtanka aakhiro. wax ilaahay carageliya oo ka xun xaqiraada qof muslin ahi ma jiro. sida nabigeena uu yidhi allahumma salli wa sallim calayh, qof waxaa shar ugu filan inuu walaalkiisoo muslim ah xaqiro. marka haddii aan Soomaali nahay waxaa nagu jiro kibir dhalanteed ah oo aan dareensaneen inuu kibirkaas nagu jiro. waa inaan ku dadaalna, aan nafsada xakameena, inaan kibirkaas iska bixina hadduu Ilaah yiraahdo. sidoo kale nidaamka iskuulka ama guriga waxbarashada caruurta guriga iyo iskuulkaba inaan wax ka bedelno. caruurta inta ay yar yihiin lagu tarbiyeeyo wanaagga iyo jaceylka
runtii caruurta kuma dhashaan nacayb iyo kuma dhashaan caruurta waxay ku dhashaan fitrada ayadoo qalbigooda nadiif ah nacaybka waa lagu abuuraa waxa ku abuura mujtamaca ayaa ku abuura marka taas waa inaan ka taxadarnaa oo caruurteena aan barnaa wanaaga iyo jaceylka hadduu ilaahay yiraahdo sidoo kale midda saddexaad warbaahinta inay iska daayaan warxumo tashiilka ay xooga saaraan sidii ay u wacyigelin lahaayeen walaalahooda Soomaaliyeed waxaan leenahay warbaahinta dhalinyarada isticmaala YouTube-ka iyo telefishinada qaranka iyo kulli inay soo saaraan barnaamijyo wacyigelin ah oo arrinkan takoorka looga hortagayo hadduu ilaahay yiraahdo sidoo kale garwadeenka siyaasadda iyo hogaamiyayaasha siyaasadda muxaafid iyo mucaaradba waa inay si wadareed uga shaqeeyaan sidii loo burburin lahaa siyaasadda ku dhisan takoorka qawaaniin lagu abaalmariyana la soo saaro hadduu ilaahay yiraahdo runtii hogaamiyayaasha siyaasadeed aad iyo aad ay uga gaabiyeen arrinkan takoorka ah marka xataa dadka siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin in Soomaaliya ay zamankan ka dhalmadaysay hogaamiye siyaasadeed oo kasmo iyo kartiba u leh inuu dalkiisa dariiq toosan ku hogaamiyo laakiin Soomaalida haddana waxay tiraahdaa dacartuba marbay malab dhashaa marka waxaan ilaahay ka baryeynaa in hogaamiyayaasheena aan markaan malabkoodii iyo samafalkoodii aragno hadduu ilaahay yiraahdo runtii shacabka Soomaaliyeed hadduu heli lahaa hogaan daacad ah oo wada toosan mariya waa la hubaa in uu raaci lahaa runtii shacabka Soomaaliyeed waa shacab laab furan caadifi ah oo isbedelkana aad ugu dhagan nugul haddii uu garwadeen helo hadduu ilaahay yiraahdo tusaale waxaa noogu filan sida hagar la'aanta ah ay u cambaareeyeen dhacdadii foosha xumeed ee loo geystay walaalkood Axmed Mukhtaar Saalax mar dhow lagu dilay Muqdisho يعني سي Soomaaliyo dhan ayaa ka khaylisay taasna waa mid yidadiila mudan ugu dambeyntii maanta waxaan u baahanahay shirweyne loo qabto arrinkan takoorka ah oo ay hogaaminayaan xeerbeegtii dhaqanka Soomaalida ku xeel dheereed ee laga soo dhaxulay qaybaha bulshada sida culimo diinka ugaasiyada hogaamiyayaasha siyaasadda suugaanleyda iyo dheergaradka kuwaasoo loo baahan yahay inay soo saaraan go'aamo taariikhi ah ee u horseedaysa sinaanta bulshada khudwadna u noqdaan shacabka Soomaaliyeed insha Allah taala waxaan ku soo khatimaynaa hadduu ilaahay yiraahdo gabaygii Abshir Nuur Faarax Bacadle tix kamid ah gabaygiisa uu uga damqaday dhibaatooyinka loo geysto beelaha la heebsooco tixda waxay tahay aqoon-yahankeena iyo abwaankiyo culimadiyo in dheergaradkeena iyo ilbaxa kuwa sheegta iyo asxaabul cuquulka yaga iyo ururada bulshada oday dhaqameedyadiyo intii iimaanku salay amuurta jaahiliga ah sidee baad ku aqbasheen ama aad uga aamusteen qof iyo camalkiisa inna akramakum cindallahi adqaakum ma inkirteen جزاكم الله خيرا وحان رجينا إنك فائدتين وبرنامجكي هرمر أمدادا أودين سوقد بيه ولكن بازي حاج بسوري وحكالو اسكسو دبردي ولكن أمويلكينا أحمد أمين حسن داود يا البرنامج كان برنامج تحنقه وحن رجينا إنا لسعتان لنا فيسبوك يوتيوب كهدو إلهي راهدو وحن إذن بلنقادنا هدو إلهي راهدو برنامج تياله oo dalka iyo diintaba wax u tara ina idin soo saarno hadduu ilaahay yiraahdo jazaakumullahu khayran daawasho wacan